بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن داوديال meel kasta iyo meel walba oo adduunyadan dacaladeeda ama taafeedeeda ku nooshiin ku soo dhawaada barnaamijkeeni u fiirso fankaaga oo aanu idinka soo gudbino TV-ga waa bar TV xaruntiisa magaalada London waxa daawadayaal barnaamijkeeni soo gudbiya anoo ah Kaltuun Muuse Cabdullaahi kolba waxaan halkan idin horkeenaa fanaanka ah marka xiiseenaysan kolba waxaan isku dayaa inaan idin horkeeno fanaaniinta si aynu markaana isla markaana uga bogano suugaanteena iyo murtida iyo madadaalada abwaanadu xitaa laftigeedu waa aynu ugu jiraan u fiirso fankaaga haddaba caawa fanaaniin isku jirta caawa halka ila joogta fanaanadeena qaaliga ah Ilwaad Yuusuf Jambeer waxaan doonayaa inaan Ilwaad kaaga bilaabo adiga iyo bulshada hadii aan iskin bari lahaa oo lahaa Ilwaad waa tuma Ilwaad waa fanaanad Soomaaliyeed oo ku dhalatay wadanka Djibouti kuna soo barbaartay wadanka Somaliland Hargeysa intii dambana qurbaha adu ku soo kortay fankeeduna uu ka hana qaaday qurbaha khaasatan magaalada London waxa halkan igu qoran heesta ugu horeysa oo nafta nafta ereyadeeda laxankeeda muusigeeda yaa ku dhiibay heesta nafta waa hees aad igu qaaliya oo runtii oran kara heesayga waan ka wada jeclahay heesta ana sameeyay heesta nafta la yiraahdaa laxankana waxa iskale Cabdi Xasan muusigana waxa tumay Maxamed Karaama naflahaba kaga naadisaha wana xur jacaylo kuna gaaday hana faynin wacadkee fanka markii aad taqaanay ama aanad ku soo biirin horeba waxa jira qof walba inuu fanaan gaarsiga jecel yahay uu fanaan taageero fanaan dhageysto dabcan fanaanin baad jeclaan jirtay dhageysan jirtay yaa kamid ahaa fanaaninta taay dhageysan jirtay walaalo waxaan aad u jeclaa gabar fanaanad oo dhimatay Allah u naxariistay Gees Xaaji Aadan oo heesa ay leedahayna heesa kamida aan qaada jira kiisi waxa ahayd xaqii dumarka dabcan xaqa ragga dawad dhageysan jirtay yaa dhageysan jirtay ragga heesta labaad ee aan doonayo maanta inaynu halkan kula wadaagno waxa la yiraahdaa Jug Kalgacal heestan magacaadi aad weyn bay wadataa yaa iskale heestan ereyadeeda laxankeeda iyo muusigeeda heestan abwaan igu qaaliya oo la yiraahdo abwaan Cabdullaahi waa bari heestina caaw TV-ga waa bari bay ka baxaysaa waa bari marka waa bari bay isugu timiday waa bari waa heesta waa bari ka baxaysaa jug baa igu dhacay kalgacal oo way jeexayaa dhammaan xididadu jaro i jibaxayaa jug baa igu dhacay kalgacal oo way jeexayaa dhammaan xididadu jaro i jibaxayaa jaahisa muuqale kama jeedsan karaye ijidanaya jaahisa muuqale kama jeedsan karaye ummadda Soomaaliyeed way dhageystaan way jecel yihiin way xiiseeyaan hase ahaatee haddana marka fan la soo hal qaado dadku way wada boodaan waxa yiraahdaa ma fiicna haddana waynu jecelnahay oo fankii waa wax wanaagsan weeyaan maxaa ay kula tahay maxaa bulshada feedback inta la geliyay oo looga boodaya marna loo jecel yahay markii la arkana looga boodaya horta waxa weeyaan sanadihii hore inantu haday fanka gasho waaba la dayrin jiray oo waa la tuuri jiray imikaas waxa bedelay dadkii hore dad iyagu waalidiin ah oo fanka ubadkooga ay jecel yihiin oo xumaan kale gali lahaayeen oo fanku ka wanaagsan yahay fanaanku Ilwaad xuduud ma leeyahay malaha fanaanku xuduud malaha fanaanku wuxuu u heesaa bulshada af Soomaaliga ku hadasha meel kasto joogan Ilwaaday
imika waxaan doonaynaa inaan soo qabanno heestii jacaylow bal noo sheeg jacaylow bal noo sheeg haa maxaa la isu sheegaya kolley heestaad ka fahmi doontaa haye heestu waa wada su-aalo haye waxaan jeclaan lahaa in laga soo jawaabo marka ma jacaylkii baad leedahay laftigiisaba jacayl oo anaga wax noo sheeg iyo ereyada oo mid in yar ereyada noo taaban karta jacaylow dadkaad hoday dadkaad jarka ka tuurtay jirada iyo xanuunkaad ku beertay jawaabtiisa jacaylkaan noo sheegi doona adigoon jiljileecu dhalan lamida jirida